اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، waxaan isku dayayaa waxaa garanaysaan inaan idin sheego islaamku information maaha, yani macluumaad cusub oo tiro badan oo dadka la siiyo maaha, laakiin waa wax laga rabo transformation, dadku inay isbedelaan. asalku markaa maaha in macluumaadkaagu tiro bataan, asalku wax weeyaan in isbedelkaagu tiro bato. sida awgeed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka waxyaabo tiro badan buu ku soo celceliyo laga yaabo dhul badan inaad ku akhrido iyadoo nafsaha ah. waayo waxaa la rabaa bini aadamka khafla ku dhacda, nisyaan baa ku dhaca, mashquul baa ku dhaca, waxyaabo badanoo amraada nafsiga oo qofka hilmaamsiisa inuu wixii ku dhaqmo baa ku dhaca. saasi awgeed baa loogu celceliyaa. ilaahayna uu qur-aanka ku tilmaamaya wadakir فإن الذكرى تنفع المؤمنين. dadka xasuusi oo waaniyo ku celceli, waayo waanada iyo dikrigu waxay waxtaraan dadka muslimiinta ah. darsigaan caawa raba inaan ku celiyaa markaa wuxuu yahay xaqiiqatu dunya, adduunka xaqiiqadiisa, oo aan isleeyahay nolosheenna marka la eego malaa qabash madmadow badan baa saaran inaynu si caadiya u aragno, ama qofkii si fiican u garanayay mala waa hilmaamay, ama shawaaqishan dunida inugu xeeran ayaa inaylowsiisay. saxaabigii nebiga la fadhiyay calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay markuu nebiga la joogana inay sidii ay janno iyo naar arkayaan markay reeraha iyo xaafadaha ku noqdaanna ee adduunka iyo shuquladiisii ay galaana kaannama aanay sidii hore ahayn. hadduu kii nebiga la joogay sidaa dareemayo kaa nebi la jooginna maxaad u malayn markaa? shayga markaad xaqiiqadiisa fahamto ayaad garan kartaa qiimihiisa iyo wasniga uu agtaada ku yeelanayo. intee buu valuegiisu qiimihiisu leegiye? intaad mudnaan siinaysaa, intaad wakti iyo caqli iyo cimri iyo xoog iyo xoolo gelinaysaa. adduunka ilaahay subxaanahu wa tacaala baa qur-aankiisa in badan kaga warramay. ilaahay wuxuu leeyahy iclamuu annama alxayaatu اddunyaa lacibun walahu waziinatun watafaakhurun baynakum watakaahurun fi اlamwaali wاlawlaad kamahali gaythin acjaba alkufaara nabaatuh ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إلهي باوحينا لي اعلموا ورعوا هذا نولشا marka cid khabiiri ku warramaysa wax kaaga warramaysa aad u dhakraaraysa. haddaad iminka dhakhtar tagto oo lagu yidhaahdo dhakhtar hebel waa ninka dunidaba aqoonta ugu dambeeya, warkiisa iyo waanadiisa si fiican baad u dhegaysanaysaa, waayo waxaad isleedahay waa nin gun og waxa uu sheegayo. marka hadduu ku yidhahdo raashinka kaa waad iska daynaysaa, kaa waad iska daynaysaayo, adigoo u mahadnaqayaad ka imanaysaa oo raba go-aankaagu uu yahay waxa inaanad cunin, sababtuna waxa weeyaan nin khabiira ayaa kuu sheegay xanuunkaagu ama caafimaadkaagu inay dhibtaasi soo gaadhayso oo mushkiladaasi ku qabsanayso. haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina leeyahy walaa yunabi'uka midlu khabiir. allaha khabiirkiisu idinku warramayo cid la midoo idinku warramaysaa ma jirto. allaha khabiirka ah ee isagu abuuray adduunkan ee og dantiyo qasdiga uu ka leeyahay jiritaankeeda, sida uu kaagaga warramayo cid kaaga warrami kartaa ma jirto. haddaba ilaahay wuxuu leeyahy adduunkaan idinka warramayaa iclamuu waxa ogaataan annama alxayaatu اddunyaa lacibun walahwun waziinatun. waxaa ogaataan baa ilaahay leeyahy adduunba inuu yahay shantan shay
alxayaatu اdunya shan shay baa ilaahay ku sifaynaya ma meel qura baa qur-aanka ku sheegaya kow waxaa la yidhi waa lacib lacibka af carabiga waxaa lagu yidhaahdaa maa laa faa'idata fiih waxaan faa'iida ku jirin cayaartay carruurtu cayaarto oo kale wax faa'iido oo badan oo ku jiraa ma jiro subaxiina way dhisaan galabtiina way dumiyaan oo iskaga tagaan waxba kama ratib maa lahwigana waxaa la yidhaahdaa bay idhaaheen maa yashgulu اlinsaana camaa yacniih bini aadamka waxa ka mashquuliya wixii dantiisa ahaa marka inta badan waxaad maqashaa iyadoo mufasiriinta qaarkood ay leeyihin lacibkuna waa ta carruurta lahwiguna waa ta dadka waaweyn midna waa ujeeddo la-aan bay dhacdaa midna ujeeddada ay leedahayba waa waktiga lagu dilo waa inuunaad wixii macnaha samaynayay ka mashquushid ilaahay markaa wuxuu leeyay ugu horeyn iclamuu waxaa ogaataan annama alxayaatu اdunyaa laciban wa lahw adduunku inuu lacib iyo lahwi yahay ma halkaasoo qura ilaahay inoogu sheegay maya 4 aayadood oo qur-aana baa ilaahay ku sheegay oo mar kasta laynoo sheegaya wama alxayaatu اdunyaa ilaa lacibun wa lahw waladaaru اlaakhirati khayru liladiina yattaquuna afalaa tacqiluun war nolosha adduunya waa adawaat اlqasri wاlxasri baa la isticmaalay wama alxayaatu اdunyaa ilaa adduunba ma aha cayaar iyo dheeldheel mooyaane wardaata aakhira u khayr badan liladiina yattaquun ee afalaa tacqiluun maanka miyaydan qabin baa ilaahay leeyahy garaad miyaanu jirin waa fii suurati اlancaam fii suurati alcankabuut waa suuradda qura uu lahwiga ka horumariyay lacibka wamaa hadihi alxayaatu اdunya ilaa lahwun walacib waina daara alaakhirata lahiya alxayawaanu low kaanuu yaclamuun ilaahay wuxuu leeyahy adduunkani ma aha lahwi iyo lacib dheeldheel iyo cayaar iyo wax waktiga la ysku dhaafimay wax kale ma aha waina daara alaakhirata lahiya alxayawaan nolosha adduunyo alxayaa iyo alxayawaan waa laba masderoo meel qura ka wada yimi laakiin alxayawaan waa masaadirta sheegta bay yidhaahdaan dhaqdhaqaaq iyo xarakada aldawabaan waljawalaan wasawalaan wakada nolosha dhaqdhaqaaq iyo macnaha leh warwata aakhira baa ilaahay leeyahy waina daara alaakhirata lahiya alxayawaanu low kaanuu yaclamuun fii suurati muxamed inama alxayaatu اdunyaa lacibun walahw wain tu'minuu watataquu yu'tikum ujuurakum walaa yas'alkum amwaalakum in yas'alkumuuha fayuxfikum tabkhaluu wayukhrij adqaanakum ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa 4 suuradood oo qur-aanka ka mida suuratu xadiidna waa ayaddii horeynu soo akrinay marka xadiid iyo ancaam iyo cankabuut iyo muxamed 4 suuradood baa ilaahay isagoo inoo waramayo wuxuu leeyahay war adduun waa lacib iyo lahwi imaam alqurطabi fii tafsiirihi lacibun ka lacib الsibyaan buu yihi walahwun ka lahwi اlfatiyaan waziinatun ka ziinati الnasawaan watafaakhurun ka tafaakhuri اlaqraan watakaaurun ka takaahuri dihqaan warbaashu waa cayaarta carruurta oo kale ah waa wax lagu dheeldheelo dhallintu waxay ku dheeshoo kale ah waa wax la ysku dhaldhalaaliyo dumarku wax isku dhaldhalaaliyeen oo kale ah waa wax la ysugu faanoo dhallinta isku da-da ahi faanka isu faanaan oo kale ah iyo takaahur waa badsasho sida tujaartu anaa kaa xoolo badanun ay u wadaan adduunka marka la yidhaho waa lahwi iyo lacib culamada qaar waxay leeyihin waa min xayثu الzawaali wاlfanaa waa xagga dhammaadka iyo waxla-aantay ka tay idan kow waxa laynoo sifeeyey adduun waa dheeldheel iyo cayaar baa la yidhi shayga saddexaada ilaahay ku tilmaamay waa maxay waa waziina ziina waa waxa bini aadamku isku qurxiyo maa yutazayanu bih waa waxa la ysku qurxiyo waxa la ysku qurxiyo maxaa ka mida bay yidhaahdaan waxaa ka mida manaasibta caaliga ah inaad power dadka u sheegato wasiir baanahay madaxweyneanahay kan baanahay waxaa ka mida bay yidhaahdeen manaasibta caaliga oo dhan isku soo dar sheekh baanahay professor baanahay dhankaa doonto ka mar waa qof mansab
وانت كلا الربا إذنكم متهدنا أنا تلمامنيو أما سي المراكب البهية بيكو تلماما ووحيابها لفوله وحي لفولي جريبرجي هروحها الضمير يا بغل يا فرس وجينيا مسنجاء يا أور أما هال إما كانت وحن مقعيضة كلاو بحسين ترى بضله المراكب البهية هي المنازل الرفيعة قريها صرية والزينة كمديه قري قواس كما يلا ساحده لكن ما شاء الله ساحده بكل بمعنى الله سمية هبل قري تبن أي كركورك سيبوا استه سرير ما تكون ساحة أنا ما تبن أي كرها هذا أما شن أي كرها هذا وسلام ماشي قري دار قري قام قري صادون تودي والملابس الفاخرة بين هذا دارك كان وليا خليج غوليا كم ده واحد سقوفانا خميس كيس بدنا قوة $1 هذا خميس كمان ما كانت تغني بالله ما لكن يقول بدنا ماذا هاي بالخميس عجبه ستوايو بدنا ماذا الله ترينا يكون حدا النوع عيين يقيمها إليه بدنا نحطها أو نكون حدا موياني أما $1 هذا أما الله بقومها هذا وسلام يشي إلهي وحولي اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلهي باين له دوني ذكر كذا وحصار وحال اسكو قرقرحيو ما كدغاي محل لوغا دغاي سان دين اتحام با إلهي سبحانه وتعالى ولا يدكو اتحاميا ما يقعد كدبا دحي مثال لي آخرة دورا إبليس مركو دارنيا لها رير نبي آدم بان لومينيا لأزينن لهم في الأرض بيقول دول كانوا قرحين دونا دلال كان تصي دبتنا يدي دبقلي دونا ما حكى رتب ميا ولو غينهم أجمعين مركا لما أنت دوان أم بن دونا أبو مركات المامية إلا عبادك منهم المخلصين كواد أدقوا دورتين موياني قارون مركو كبري الربي كبر كيسا إنو ضدك وصوبان بيبو إلهي محيري فخرج على قومه في زينتي تلكي مكو صوب حي سقو محي زينتي سيكررا لكن دتك الله يوقف سماه كويان حقيقة فهمين محيد هذين قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم كوي نولش أدون دون يبا إلهي يريدون الحياة الدنيا يقوى على مركا أركان نكاسي وحروته الله جعلان لهين بيلي بل ما نوحو هايستوك لها يسمى تمني قدوا انت أما كوي كلا إلهي آيات كدبا قرآن كوا كلينا وقوى الرمية بل إلهي سبحانه وتعالى ينتسقصوا ضريبه حليا المال والبنون زينة الحياة الدنيا dadku waxyaaba uu jecel yahay waxa kamid ah ruur badan inuu dhalo hebel waa 30 buu dhalay 20 buu dhalay 40 buu dhalay kow iyo waa bilyaneer iyo milyaneer xoolo badanna wuu haystaa ilaahay inta meel mariyay ayuu wuxuu ku tilmaamay inay ziinatul hayati dunya waa nolosha inta la isku qurxiyo buu alla leeyahay laakiin ilaahay wuxuu ku leeyahay wal baqiyatu salihatu khayr كوا وارا ونكسن علماء waxay dhahaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kuwa salaam baqiyatu salihat ba ka khayr badana la agti markay thawaab joogto wa khayrun amala iyagana ka raja iyo mustaqbal fiican laakiin inaga agteena miya caynka ku tay subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah miya dum alayna sayr milyaneer nima ka fiican tahay dilu gala darasiya xaqad mari lahay يعني إلهي سبحانه وتعالى وحربين ونشجع الدون كان حقيقة دي سمحيتي سيدا وجد النبي محمد سجوا إلهي الله سبحانه وتعالى والرسول كسي وصادرتي يوحوت المامي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا إلهي وحو النبي سكولي عليه الصلاة والسلام وحاد نفط هذا كوحة بستان لتشوكتا كو إلهي حصة مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي
kuwa ilaahay baryaya caabudaya xusaya gelin horiyo gelin dambaba kuwaas yuriiduuna wajha ilaahay wajigii raadinaya mukhlisiina isha ha u taagin baa ilaahay yidhi kuwa ha ka dhaafinin ishaada adigoo raadcaynaya baa la yidhi turiidu ziinata alxayaati dunya nolosha dhalaalkeeda adigoo raadinaya qoladan ha ka tegin baa ilaahay leeyahy nebi maxamed waxaa loo tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam naadiyaynu kala leenahay soo maaha naadiga ay dee qolada maalqabeennada iyo kafeteriyada ay fadhiistaan iyo meelaha dee ragga ay isugu yimaada cindanaa saynu wax u fasiro qoladaa kooda waxba isku mashquulin baa ilaahay leeyahay waxaad tagtaa oo aada la fadhiisataa oo la joogtaa kuwa rabbi caabudo gelin horiyo gelin dambaba kuwaa la fadhiiso kuwaa ha u tegin adigoo raadcaynaya ziinat alxayaati dunya walaa tutic man akfalnaa qalbahu can dikrina idan ilaahay wuxuu leeyahy war waxay ogaataa nolosha adduunya waa lacib cayaar iyo lahwi wax la isku mashquuliyo wax waktiga dila aan macno samaynaynin iyo ziina wax la isku qurxiyo la isku dhaldhalaaliyo ka afraada ilaahay ku tilmaamay wuxuu yihi watafaakhurun baynakum tafaakhur waa atamadux bilkhisaal watacaadumi biha waa adigoo ku faana faanfaan ku faana magac iyo alqaab kuwa aynu sheegaynay professor baan ahay doctor baan ahay sheekh baan ahay caalim baan ahay kan baan ahay laqab baad ku faanaysaa ama amjaad reerka iyagu wuxuu ahaan jiray annagaa talin jirnay annagaa dadka layn jirnay annagaa caynkan ahaan jirnay amjaadil awowiyadii hore waxay sameeyeen iyo nasabka reer hebel baanno waa tiro badan oo waa laandheeraanno kan baanu nay amase aqoon-yahan baan ho waan cilmi badnay ama maahay waa maal badan oo anugu bilyaneer baan ahay ama maahay manaasibta dunawiga ah wuxuu doonaa ka noqdee waxaasoo dhami waa tafaakhurun baynakum faanfaan ay isu faantaanu yani waxaanaad sheegayso dhan adiga waxaa kaa raacayaa waa intaad cuntay iyo intaad cabtay iyo in la mid ah inta kale waa maxay faankay kuugu jiraan wax kaload ku qabanaysaa ma jirto inta kale waa inaad ku faanto uun waa tidhaahdo waan ka badiyey qolyahaasoo dee anaa ka xoolo badan ama ka ilmo badan ama ka waxan badan inaad sheegato ilaahayna qur-aanka wuxuu ku leeyahay ina allaha laa yuxibu kula mukhtaalin fakhuur ku kastoo kibir badan oo faanfaan badnaa alle ma jecla tilka daaru laakhira najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwa fi lardi walaa fasaada tani waa daartii aakhira baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala waxaanu u yeelaynaa kuwaan adduunka culuwi ku rabin iyo fasaad toona ina akramakum cinda allahi haddii karaamo iyo sharaf la rabo waa sidaa ilaahay ugu kala dhowdiina si ama u kala magac weyntiin ama u kala cilmi badantihiin ama u kala kan tihiin ma aha maxaad u malaynaysaa nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu leeyahy ina allaha awxaa ilay an tawaadacuu xataa laa yafkara axadu axada axadu calaa axadin walaa yabgi axadu calaa axad nebigaa wuxuu yidhi ilaahay baa wuxuu ii waxyooday tawaaduc iyo isdhuldhig isla weynida iyo tafaakurka iyo faanka cagsigeeda ayaa ilaahay ii waxyooday si aan ugu faanin qofna qof ama si aan qofna qof ugu xadgudbin kaasaa lai waxyooday buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waa xaqiiqo jirta adduunka intaynu joogno inaynu ama kala xoogala badnaan karno ama kala caruur badnaan karno ama kala cilmi badnaan karno ama manaasibta adduunye ku kala korayn karno laakiin maxay tahay macnahay sheegaysaa ma ammaan baa maya waa imtixaan kuu kordhay uun warafaca bacdakum fawqa bacdin darajaatin liyabluwakum fima aataakum baa ilaahay yidhi kooxba koox buu ka kor yeelay maxaa laydinka kor yeelay darajaad baa laydin kor yeelay liyabluwakum fima aataakum in ilaahay idinku itixaamo waxaan aada haysataan ee laydin siiyey idan haddii xoolaha laguu badiyay imtixaankaa kuu batay uun imtixaanku hadduu kuu batana ama waad guulaysan oo wixii rabbi sheegaad ku isticmaali ama waad guul daraysan
وسيادو هاي سابا ودكو كوكسو قاري أما حمابتكو استعمالي هداد منصب هاي ستا أما ودكو عدالة سمينا إلهي بعد قول دوان أما وام حيواتكو ظلم السمين هداد علمي هاي ستا أما إلهي بعد قول دوان أما ودكو فانفاني حولهم بدكو ررسن وحوالبا وحن ديرات كأنكو سيا دتك كلا دير تهي وامتحان با إلهي لي ليبلوكم فيما آتاكم وهي إلهي سيدا يدنكو يالين لا يدنكو يتحامو وحا هاي ستان تفاخر بينكم فانفان يو تكاثر في الأموال والأولاد يحول بدنية والله يسو شيكتو تكاثر كوا فرشيغشو فرشيغش أنا كادت بدني أنا كاحول بدن ومباهات بكثرة الأموال والأولاد وإياه إلهي قرآنكم محولي ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وحائد مشغولية بالي ألها من اللهو جويا وحائد مشغولية بطسي نكما الغبينك صلاة ظهر صوكعة دبيتنا حساب وكل سيا يساك ماشي وكوك الله يحلو سي يبري بروجرام كيسوح نقن دونه إنه حولها صوب بديو waxaa laga yaabaa saqda dhexe inuu soo noqdo isagoo rafaadsan aanay dhanna kaga jirin laakiin rumaysan intaasoo mashruuc baa soo fuliyey kan baa soo sameeyo kan baa soo sameeyo kan baa soo badsi baa idin mashquuliyey baa ilaahay leeyahy aakhira iyo wixii jiray wuu iska ilaabay siduu ugu mashquul ahaa inuu wax badsado xataa zurtum lmaqaabir